madaxweynaha Mareykanku waxa uu mar kale isna ku dhawaaqay inay soo gali doonaan dagaalka bariga dhexe haddii ay Iran diido inay samayso wax tanaasul oo ku wajahan arrimaha la isku hayo ee hubka nukleerka soo kale maalmihii la soo dhaafay gobolka bariga dhexe waxa si weyn ugu qulqulaya ciidamo aad u badan oo Mareykanka ka socday gantaalaha difaaca ee Patriot-ka loo yaqaan kuwaas oo ay warbaahinta ay Israa'iil sheegayso inay maanta qayb ka noqdeen difaacidii kala duwanaa ee lagu sameeyay dhinaca iyo waliba sidoo kale Israa'iil talabadu waxay muuqataa inay tahay mid muujinaysa sida gobolka bariga dhexe ugu sii dhawaanaya dagaal daba dheeraada oo mid walaac ku abuuray dhammaan dadka ku sugan gobolka xasaasiga bariga dhexe iyo dunida oo dhan Qatar ayaa gordhawayna ku dhawaaqday in ay walaac weyn ka qabto marinada badaha gaar ahaan gacanka Hormuz iyo kan cadmeed oo ay sheegtay in labaduba halis ay ugu jiraan dagaalku inuu si xoogan u saameeyo tani waxay ka dambeysay markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi uu ku dhawaaqay inay Israa'iil beegsatay goobo kala duwan oo ku yaala gacanka Hormuz iyo kan cadan oo yoolkiisa ugu ballaaran bay ahayd in ay lahaayeen kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaas Iran oo Israa'iil ay weerar ku qaaday warbixinta waxaan ku eegi doonaa saddex arrimood oo kala maxaa dhici kara haddii Mareykanku si toos ah ugu beero dagaalka bariga dhexe maxay tahay halista ka dhalan karta in Washington ay weerarto dhinaca Iran hanjabaadda Trump iyo waxa laga soo bixi karo gaar ahaan marka laga hadlayo xiisadda hadda ka ogan gobolka xasaasiga ee bariga dhexe aynu ku bilaabanay hanjabaadda Trump madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump waxa uu sheegay in Iran la kulmi doonto cawaaqib aan la mahadin doonin haddii ay qaadan weydo heshiiska looga baahan yahay goordhowna waxa uu Trump mar kale ku celiyay in ay garanayaan halka uu ku dhuumanayo hogaamiyaha dalkaas Iran ee Ali Khamenei ugu sareeya wuxuuna sheegay in hadda uu diyaarsan inay dilaan laakiin laga doonayo inuu heshiis degdeg ah qaato madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay oo kale in ay Iran ku hawlan tahay soo saarista madaxyo cusub oo hubka nukleerka taas oo ku tilmaamay mid aan sinaba loo aqbali karin wuxuu beeniyay warbixin hay'adda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA ay soo saartay oo macnaheedu ama nuxurkeedu ahaa in ay gabi ahaanba tahay in aysan Israa'iil hadda u diyaarsanayn inay soo saari karto madaxyo hub nukleer isla markaana duqeymihii kala duwanaa ee ay ku qaaday Israa'iil ay khasaare gaarsiiyeen Trump taa waa uu diiday inkastoo hanjabaadaha Trump ay yihiin kuwa ka fudud kuwii uu Iran u diri jiray bilihii la soo dhaafay haddana waa kuwa muujinaya aqalka laga abaabulaya dagaal ka dhan Iran kaas oo noqon doonin mid la mid ah weerarada ay Israa'iil waqti xaadirkan ku tuhayso dhinaca iyo waliba soo kale Iran Trump wuxuu muuqdaa nin leh hadaf aad u dheer oo ku wajahan dowladda Iran kaas oo ku arooraya laba arrimood oo kala in cadaadis la saaro Iran lana ogaado heerka awoodeedu gaarsan tahay iyo in lagu sameeyo arbushaad joogto ah iyadoo ugu dambeynta loo golaysiinayo inay samayso tanaasul kama dambaysa gaar ahaan inay gasho heshiis nukleerka oo ka duwan kii dhacay sanadkii 2015 kaas oo Trump aaminsan yahay inuu ahaa khiyaano uu cagaha la galay madaxweynihii Mareykanka xilliga ka tirinaya Barack Obama oo isagoo hormuud u ahaa dalalka reer galbeedka ee heshiiska la galay dhinaca Iran waxa Trump sheegay in hubka Mareykanku uu hawada Tehran isagu maamulayo oo go'aanadiisu ay ka fulayaan wuxuuna sheegay in gudaha dalkaas Iran hub badan yaalo laakiin hubka Mareykanku ka awood badan yahay waa hanjabaad cad oo muujinaysa Mareykanku inuu dagaalka si buuxda hadda u galayo haddii Mareykanku si kama dambaysa u qaato inuu dagaal toos ah ku qaado Iran arrimaha la filan karo inay dhacaan ama laga cabsi qabo waxa kamid ah in Mareykanku uu adeegsado diyaaradaha sida daran wax u duqeeya B2 bilihii la soo dhaafay gaar ahaan markii ay cirka isku shaartay xiisadii u dhaxaysay Iran iyo wadamada Mareykanka waxa uu Trump amray in diyaaradaha sida daran wax u weeraro ee B2 loo daadgureeyo badweynta Hindiya halkaas oo loo geeyay inay ka weerarto dalka Iran diyaaradan oo ah nooca ugu qaalisan ee dhammaan diyaaradaha uu soo saara Mareykanka aan loo ogolayn habeen inay ku hoyato meel ka baxsan ciidda Mareykanka waa mid lagu tilmaamay inay qayb lixaad la ku leedahay hubka culus ee loo diyaariyay in lagu burburiyo salgada dhulka hoostiisa kuwaas oo ku jiraan gantaanaha nukleerka waxaana la filayaa in lagu garaaci karo goobo kala duwan oo ay ka mid tahay Forda oo ah goobta ugu muhiimsan ee ay hadda aaminsan tahay Israa'iil inay lagu keediyay madaxyo loo diyaarinayo in hub nukleer laga dhigo waana diyaaradda kaliya ee awood u leh B2 inay gaaraan goobaha dhulka hoostiisa iyo meelaha qarsoon ee Iran wax ku kaydiso taas oo ka dhigan khasaare buuxa oo ku soo wajahan Iran baaris ay samaysay warbaahinta Al Jazeera laguna wareystay khubaro military oo si weyn uga faaloota arrimaha bariga dhexe waxay sheegaysaa in Mareykanku uu duulaanka ka soo gali karo dhinaca Israa'iil isagoo ka fogaanaya inuu salgada gobolka ka weeraro Iran maadaama laga cabsi qabo in si toos ah u saameeyo dalalka gobolka gaar ahaan kuwa khaliijka ee uu Mareykanku hadiiba colaadan uu cagaha la galayo uu dhinaca iyo waliba Tel Aviv ka imaanayo Tehran waxay hore uga hanjabtay inay beegsanayso dal kasta oo gobolka ku yaala weerar laga soo qaado waxaana u diyaarsan jawaabta ay bixin lahayd waana cabsida ugu xoogan ee dhinacaas ka soo wajahan
marka laga soo tago in la burburiyo hubka Iran ku ay ku faanayso waxa kale oo dhici karta in la beegsado madaxyada dalkaas ugu sareysa iyo sidoo kale in wadanka la dumiye kaabayaasha dhaqaale sida wadooyinka dhuumaha shidaalka qaada biyo xireenada iyo in lagu soo rogo cunaqabateyn aad u si sareysa oo ka daran dhammaan kuwii hore u saarnaa dhankaas iyo waliba soo kale Tehran Iran ma laga weerari karaa dhinaca dhulka sida la fahmi karo waxay dad badan aaminsan yihiin dagaal dhinaca cirka loogama adkaan karo dawladda Iran oo hadda ku awood badatay duulaanada kala duwan ee dhinaca dhulka iyo waliba sidoo kale in ilaa hadda la ay sheegayaan hay'adda atomikada caalamiga in wixii ay Israa'iil u gashay duulaanka oo ahaa tirtirida hubka nukleerka wali uu baaqi yahay oo wax khasaaraha la arkin waxaan mar walba loo baahan yahay in Iran dhinaca dhulka weerar looga qaado iyadoo laga duulayo dhanka dalka Ciraaq taasna waxa la aaminsanyahay inaysan u baahnayn oo kaliya inay ku midoobaan Mareykanka iyo Israa'iil ay u baahan tahay inta badan wadamada ku midaysan isbaaysiga gaashaanbuurta NATO balse tan waxay u baahan tahay oo kale in la helo awood xooggan iyo in marka hore laga adkaado kooxaha Ciraaq ku sugan ee ku daawan Tehran kuwaas isku dayi doona inay yana difaac adag galaan si kasta oo looga duqeeyo dhinaca cirka Iran marnaba suuragal ma aha in laga adkaado waxaana taas lagu tijaabiyay dalkaas Yemen halkaas oo muddo 50 maalmood ka badan duqeymo lagu waday kooxda Xuutiyiinta oo ugu dambeyn laga adkaan kari waayay sida uu madaxweynaha Mareykanku ku dhawaaqay baqdinta lagu sameeyo dhinaca Iran arrimaha ku kalifaya in weerar toos ah lagu qaado Iran waxa kamid ah in Mareykanku uu doonayo cabsi gelin lagu sameeyo Tehran taas oo loo goleeyahay in laga gaaro 3 natiijo midkood oo kala in lagu karaar jabiyo ama lagu dhimo xawaaraha sameysashada hubka nukleerka ee dawladda Iran oo la burburiyo kaabayaasha muhiimka si ay waqti kale oo dheeraad ugu qaadato dhinaca Iran inay dib u farsameyso wixii la burburiyay labo in Israa'iil lagu garab istaago lagana saaro xaaladda halista ee waqti xaadirkan ay ku sugan tahay ee uga imaanaysa dhanka Tehran iyo in lagu cadaadiyo oo lagu khasbo inay qaadato waxa uu Mareykanku doonayo Tehran taas oo ah inay ka tanaasulo haysashada iyo sameysashada hubka waxgumaada ee nukleerka Mareykanku wuxuu si toos ah hadda u helayaa fariimo joogto ah oo uga imaanaya dhinaca Israa'iil taas oo laga dalbanayo inuu ku soo biiro dirirta oo qayb ka noqdo waxaan ilaa hadda aan cadayn dhexdhexaadinta labada dhinac laga dhex samayn karo iyadoo aanay jirin cid dhinacyada ka madax bannaan oo hawshan ilaa haatan loo dhiibi karo dad badan waxay aaminsan yihiin in Mareykanku uu ku fashilmayo ilaa hadda sida uu galkan u maareeyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaana sheegay in Trump uu qaatay hogaamin cajiib ah iyo isxakameyn dhameystiran oo muddo dheer ku maqnaa waxaana aqalka cad oo maantadan oo Washington ay weli maalin u tahay uu Trump dadaalka ugu badan ka gelinaya sida uu xaaladda uga hadli lahaa dhinacyo ay ka mid yihiin Benjamin Netanyahu iyo saraakiishiisa militariga ee dhanka Mareykanka oo ku kala dooransiinayo nooca jawaab ee Mareykanku uu qaadayo safiirka Mareykanka u fadhiya Israa'iil ayaa qoraal SMS ah oo u diray Trump oo Trump bartiisa dib ugu soo sheergareeyay oo u soo dhigay wuxuu ku safeeyay oo sheegay in loo baahan yahay 1945 hogaamiyihii Mareykanka ee xiligaas inuu ka hoos uga dhacay inuu jawaab degdeg ah bixiyo haatan Trump looga baahan yahay taariikhda inuu qaato oo go'aanka dagaalka uu qayb ka noqdo taas waxa loo arkayaa in Trump inay ku riixayso iyo waliba soo kala caayisada kala duwan ee la kulmay dagaalka durba si toos ah u galo ugu dambeyntii waxa kale oo dagaalkan ku lumid doona khasaare aad u badan oo waqti xaadirkan aanu si buuxda diyaar ugu noqon dhinaca Mareykanka waxaana shaki lahayn in dagaalku u balaayiin iyo trillion dollars uu saadan doono xilli raxaano kala duwan oo diyaaradaha F-35 iyo kuwa hawada ku siiya shidaalka diyaaradahaas loo daabulay gobolka bariga dhexe saanadii ugu badnayd ee Mareykankuna ay gobolka caawa ku hoyanayso taasoo macnahan ka dhigan Mareykanku inuu dagaalka si buuxda hadda qayb uga qaadanayo